bismillaahi raxmaani raxiim warbixinteenan maanta ayay waxaynu diiradda ku saaraynaa maraykanka oo hal isbuuc ku xadiday soo afjaridda dagaalka iiraan dubai oo lagu kala cararay islamarkaana kordheen gantaalada soo booqanaya shiinaha oo soo bandhigay goobaha gantaalada iiraan ay ka tuurto iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda bariga dhexe gaar ahaan dagaalka u dhexeeya iiraan iyo weliba huwanta isbahaysatay ee maraykanka iyo israa'iil sida ay tilmaamayaan warbixinno ay qorayaan warbaahinta cibriyiinta ah ayaa waxay daaha ka rogeen in Trump madaxweynaha Maraykanka uu ka dalbaday Israa'iil in la soo afjaro dagaalka lagula jiro Iiraan hal isbuuc gudihiisa warar hor leh oo si lama filaan ah u soo baxaya ayaa waxa uu tibaaxaya inuu isbedelay hanaankii uu ku socday dagaalka warbaahinta cibriyiinta ayaa waxa ay qoreen in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ka dalbaday Israa'iil in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Iiraan lagula jiro waxa uuna u xadiday muddo kooban oo gaaban oo aan ka badnayn hal isbuuc kaliya si loo soo afjaro dagaalka military ee markaasi lagu ekeeyay Iiraan wararkan ayaa waxa uu dhaliyay mowjad weyn oo markaasi la isweydiinayo sida uu noqon doono mustaqbalka dagaalka gaar ahaan dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil kaasi oo galay marxalad lafajabis ah oo aan waxba la isku laharin sida gantaalo diyaarado iswada duqeymo aan xisaab lahayn oo labada dhanba isdhaafsanayaan sida laga soo xigtay warbixinada soo baxay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu gaarsiiyay kuna wargeliyay hoggaanka Israa'iil daruurinimada joojinta howlgallada military liddigu ku ah Iiraan muddo aan ka badnayn 7 maalmood talaabadan ayaa waxay imaanaysaa in Maraykanka uu dadaal weyn ku bixinayo isku dayga lagu joojinayo dagaalka si meesha looga saaro iska horimaadyada military ee labada dhan ee bariga dhexe gaar ahaan kadib markii labada dhan ay isku adeegsadeen duqeymo ba'an oo aan waxba la iskula harin oo mandiqada ka dhacaya maalmihii ugu dambeeyay fariinta Maraykanka marka loo eego warbixintani ayaa waxay keentay in Washington walwal badan ka soo food saaro sii socoshada dagaalka midaasi oo keeni karta in gobolka oo dhan uu isla qarxo si weyn oo marka dambena dagaalka la xakameyn waayo haddaba Maraykanka muxuu doonayaa in dagaalka la soo afjaro warbixinta ayaa waxay tilmaamaysaa in maamulka Maraykanka uu arko sii socoshada dagaalka ee u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil inuu keeni karo xadgudubyo khatar ah ee ka dhaca mandiqada iyo caalamka gaar ahaan arrimaha khuseeya tamarta iyo weliba xasiloonida dhaqaalaha mar walba oo dagaalka sii ballaarto waxa uu khatar ku yahay dhaqdhaqaaqa maraakiibta khaliijka ama marinka Hormuz midaasi oo marka dambe keenaysa in sicirka shidaalka iyo tamartaba ay cirka isku shareeraan caalami ahaan Washington sidoo kale waxay ka baqaysaa inuu iska hor imaadka ballaarto haddana uu ku furimo kale oo hor leh oo bariga dhexe ah haddii ay noqon lahayd inay ku soo biiraan dhinacyo goboleed oo cusub ama beegsiga saldhigyada Maraykanka ee mandiqada cadaadiskan Maraykanka ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii ay soo bateen baaqyada caalamiga ah ee joojinta dagaalka oo laga hortago dagaalka inta uusan noqon mid faraha ka baxa oo mandiqada oo dhan isku bedesho meel ka soconaya dagaal goboleed oo ballaaran qaar ka mid ah wadamada waaweyn ayaa waxa ay ku baaqayaan dagaalka in la joojiyo iyada oo haddana cabsida ay sii kordhayso oo markaasi ku aadan sii socoshada dagaalka gaar ahaan duqeymaha la isdhaafsanayo inuu keenayo inuu sii baaho halka uu dagaalka ka socdo ayna suuragal tahay inuu saameeyo dowlado kale oo gobolka ah ilaa iyo hadda Israa'iil kamaysan soo jawaabin dalabka Maraykanka si waadax ah oo rasmi ah gaar ahaan xukuumadda Israa'iil oo arintan ku saabsan marka loo eego warbixintan hase yeeshee su'aasha ayaa waxa ay tahay oo warbixinta lagu soo gabagabeeyay Israa'iil ma doonaysaa in la soo gabagabeeyo dagaalkani isbuuc gudihiisa sida ay dalbatay Washington mise howlgalka military waa sii soconaya iyadoo ay jirto cadaadisyada caalamiga ah Dubai oo lagu kala cararay isla mar ahaantana kordheen gantaalada soo booqanaya jariirada Ingiriiska laga leeyahay ee loo yaqaan Daily Mirror ayaa waxa ay soo saartay warbixin aad looga naxay midaasi oo ciwaan uga dhigtay Dubai maaha meel aamin ah gantaalada Iiraan ayaa waxay u bedeleen meel muuqaalkeedu aad isu bedelay oo aad looga argagaxo quruxdii la ashqaraari jirayna ay meesha ka baxday kumanaan ajaanib ah oo ay ka mid yihiin dad u dhashay Ingiriiskana ay ka cararayaan si aan soo laabasho lahayn warbixintan ay waxay ciwaan uga dhigtay riyadii Dubai ma dhamaatay jariirada Daily Mirror ayaa waxay daabacday warbixin aad u dheer oo markaasi ku saabsan
burburka degdega ah oo ku yimi nolosha dalka Imaaraadka, iyada oo lagu tilmaami jiray inay tahay goob aamin ah. Jariiradda ayaa waxay xaqiijisay in Dubai ay noqotay meel ay martigeliso gantaalada Iiraan 3 meelood meel ahaan, halkaasi oo ay ku noqotay dadka caanka ah iyo weliba dadka saamaynta leh ee u dhashay Ingiriiska ku reebtay kaabuus xaqiiqi ah. Haddaba waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha ay qortay warbixinta ee dhammaadka riyada Dubai. Waxaa la beegsaday goobaha istiraatiijiga ah iyo weliba goobaha dalxiiska. Jariiradda waxa ay daaha ka rogtay in la maqlay 3 qarax oo aad u waaweyn oo gilgilay maalintii Arbacada magaalada Dubai, kaasi oo waxyeelo weyn u geystay madaarka Dubai ee caalamiga ah. Waxaana shaqadooda joojiyay shirkadaha diyaaradaha oo safar badan ay kansaleen. Naxdinta weyn ayaa waxay ahayd markii si toos ah loo beegsaday hoteelka loo yaqaano Fairmont oo caanka ah oo markaasi ku yaala Nakhlatu Jumeirah. Intaasi waxaa sii dheer in bangiyada caalamiga ah sida Citibank iyo weliba Standard Chartered waxayna faarujiyeen xafiisyadooda kadib markii hanjabaad toos ah uga timi dhanka Iiraan. Waxaa Dubai isaga cararay dadkii hodanka ahaa oo halkaasi deegaanka ka dhigtay in ka badan 240,000 oo Ingiriis u dhashay oo ay ka mid yihiin dad caan ahaa. Warbixintan ayaa waxa ay tilmaamaysaa inay Dubai ka carareen 10,000. Sidoo kale maamulaha iskuulka Ingiriiska ayaa waxa uu xaqiijiyay jariiradda in macallimiinta iskuulkaasi isaga baxeen Dubai iyaga oo markaasi la dhibtoonayay xaalad nafsiyeed oo daran. Sidoo kale Dubai waxaa ka baxay shaqaalihii iyo weliba darawaladii taksiyada. Dubai xaalkeeda waa isku dhammaaday, dalxiiskiina waa istaagay si dhammaystiran. Sidoo kale Dubai amniga ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la mamnuucay in la duubo qaraxa gantaalada. Qofkii duubana waxaa la duldhigay ganaax gaaraya 40,000 oo giniga sterliinka ah iyo weliba 2 sano oo xarig ah, midaasi oo markaasi lagu yaraynayo qalqalgelinta amniga iyada oo loo dan leeyahay si dadka looga nixin oo aysan uga cararin Dubai. Dhaqaalaha waa curyaamay, marinka Hormuzna waa xiran yahay. Iyada oo uu xiran yahay marinka Hormuz ayaa haddana maraakiibta ku xiran dekada Jabal Ali ayaa la beegsanayaa. Dubaydii ku faani jirtay keydka shidaalka ugu badan ayaa waxay waayeysaa waxyaabihii nolosheeda ku xirnaa ee ahaa ammaanka iyo weliba logistikada. Xitaa dadkii sida daran u daafici jiray oo ahaa dadkii saamaynta lahaa ayaa Dubai isaga baxay si qarsoodi ah iyaga oo markaasi ku wajahan London. Daily Mirror ayaa caalamka waxa ay soo hordhigtay xaqiiqo qaraar, muuqaalkii quruxda badnaa ee Dubai oo in badan ku naaloonaysay muddo badanna soo dhisaysay isbuucyo yar ayuu ku burburay. Magaaladii ku faanaysay hodantinimada ayaa waxay la daalaadhacaysaa xaalad aad u adag. Muuqaalo uu qaaday dayax gacmeed uu leeyahay Shiinaha ayaa waxa uu muujinayaa mid ka mid ah goobaha laga tuuro gantaalada oo ah magaalo ciidan oo Iiraan leedahay oo buuraha hoostooda ku taala. Iiraan ayaa waxay adeegsanaysaa 5 goobood oo markaasi laga tuuro gantaalada kuwa neg iyo weliba kuwa gurguuraba oo markaasi ku teedsan buuraha ku hareeraysan dalkaasi. Haddii hal goob gantaal laga tuuro, isla markii haddana waxaa loo guurayaa goob kale. Marka uu midka afraad uu gaarana, haddana waxa uu noqonayaa midka koowaad oo markaasi la diyaarinayo marka uu burbur geysto kadib. Goob kasta ayaa waxaa ku diyaarsan radar technology oo tuuris ah, kaydad, maamulka isgaarsiinta iyo weliba meel laga xakameeyo gantaalada. Qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa wahmi ah oo gantaalo loo ekeysiiyey oo fake ah, kuwaasi oo markaasi lagu qaldayo diyaaradaha cadowga ee duqeymaha geysanaya. Iiraaniyiinta ayaa si weyn waxay uga faa'iideysteen dagaalkii 12 maalmood socday oo markaasi lala galay Israa'iil iyo Mareykanka. Hadda waxay leeyihiin dabacsanaan ku filan sidii markaasi ay ula tacaamuli lahaayeen la socodka iyo weliba burburinta dhanka hawada ah ee Mareykanka iyo Israa'iil. Dhanka kale, Israa'iil ayaa sheegtay 24 saac la soo dhaafay ay beegsadeen 2,000 oo hadaf, sida uu daabacay telefishinka Al-Hadath, gaar ahaan bartamaha iyo weliba galbeedka Iiraan. Sidoo kale ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inay fuliyeen 10 weerar ah oo duqeyn ah oo ay markaasi ku ekeeyeen kaabayaasha dhaqaalaha ay leeyihiin Xisbullah, gaar ahaan caasimadda Beirut iyo weliba Biqaac oo ka mid ah koonfurta Lubnaan. Dhanka kale, warbaahinta Israa'iil ayaa waxay xaqiijisay in saraakiil Israa'iiliyiin ah oo markaasi ka wada naaqashayaan suuragalnimada inay qaadaan howlgal ballaaran oo dhulka ah oo ay markaasi ku qaadayaan koonfurta Lubnaan oo isbuuc gudihiisa lagu fulinayo.
howlgalkan ayaa ujeedkiisu yahay inay la wareegaan gacan ku haynta koonfurta Lubnaan halkaasi oo ay geeyaan ciidan xoog leh oo halkaasi laga sugo amniga Israa'iil. Dhanka kale, ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxay iclaamiyeen sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Tasniim ee Iiraan laga leeyahay inay fuliyeen mowjadii 43aad ee howlgalka ballanta runta ah. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa warsheegaya in qaybta xiriirka guud ee ilaalada kacaanka ay ku dhawaaqeen inay qaadeen mowjadii 43aad. bayaanka ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka ayaa waxaa lagu waadixiyey in weerarka ay qaadeen ay ku bartilmaameedsadeen maraakiibta raxanka ah ee shanaad ama kuwa loo yaqaano the 50th Fleet ee ciidamada badda ee Mareykanka iyo weliba saldhigyo kale oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ee gobolka. bayaankana wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale ay weerar daran ay ku ekeeyeen kuna beegsadeen qalbiga caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv ee waqooyiga dhulka xooga ay ku haysato iyo weliba magaalada Eilaad iyadoo markaasi isticmaashay gantaaladeeda ridada dheer ee aadkana u culus ee Kharam Shahar oo sidii madax culeyskiisu gaarayo 20 iyo gantaalo kale oo madaxyo kala duwan xambaarsan iyo weliba gantaalka loo yaqaano Cimaad oo isagana siday madax culeyskiisu gaarayo 1 tan iyo weliba gantaalka Khaybar Shakin oo isagana ku xirna madax culeyskiisu gaarayo 1 tan. intaasi waxaa sii dheeraa diyaaradaha iswada ee isqarxiya.